waxaan wanaagsan akhyaartana daawatay halkani waa Somali Direct TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay aan idinka haynaa gobolka Soomaalida. qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah madaxda Soomaaliya ugu sareysa Xasan Sheekh iyo Xamse Cabdi Barre oo kala furfurus ku bilaabay xildhibaanada diidan qorshaha filada Soomaaliya oo dastuurku ugu mudan yahay. xogo aan idinka haynaa xeelada ay Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku ansixinayaan dastuurka Soomaaliya oo la isku fahmi layahay. maxaa ka jira in xilka laga qaadayo agaasimaha Salaad iyo saraakiil kale oo ka tirsan laamaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. qodobadan iyo qodobo kale ayaan daawadayaal idinku haynaa warkeena oo uu ka mid yahay mashruuc weyn oo laga qadiyay maamulka SSC Khaatumo ee u diyaar garooba wararkaas oo fidsan. soo dhawaada daawadayaal taariikhdu maanta waa 21 bisha saddexaad sanadka 2024 maalin Khamiis ah. aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka duulaya ansixinta wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya ayaa bilaabay kulamo gooni ah oo ay la qaadanayaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. kulamadan oo dhacay saacadihii la soo dhaafay ayaa ka qabsamay xarunta Villa Soomaaliya kuwaas oo ujeedkoodu ahaa meel marinta wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya. iyo waradyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in madaxda qaranku ay kala furfurus ku bilaabeen xildhibaanada diidan ansixinta afarta cutub ee dastuurka Soomaaliya kuwaas oo maalin ka hor cududooda ku soo bandhigay magaalada Muqdisho. xubnaha diidan dastuurka Soomaaliya ayaa isugu jira xildhibaano iyo senataro tiradoodu gaarayso ilaa 70 mudane kuwaas oo lolahooda diidmada ka dhex wada baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si gaar ah saacadihii la soo dhaafay ula shirayay xildhibaano kala duwan isaga oo ka codsaday inay ka shaqeeyaan meel marinta dastuurka. sidoo kale waxa uu ku qanciyay xildhibaanada in dastuurka uusan ahayn kitaab quraan ah waxna laga bedeli karo sidii horeba u dhacday markii uu ahaa axdi qarameedka. dhankiisa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo kulan la qaatay xubnaha golaha wasiirada ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku amray inay si buuxda uga qayb qaataan meel marinta wax ka beddelka dastuurka ayna sidoo kale ka dhex bilaabaan xubnaha kale ee diidan. Villa Soomaaliya ayaa dadaal xoog leh ku bixinaysa qorshaha wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya iyada oo garab ka helaysa guddoonka baarlamaanka waxaase diidan xubnaha mucaaradka ah. markana daawadayaal saacadihii la soo dhaafay waxa aad loo hadalhayay in madaxweynaha Soomaaliya uu damacsan yahay inuu xilalka ka qaado mas'uuliyiin ay ku jiraan taliyaha NISA Mahad Salaad iyo taliyaha xoogga General Ibrahim Sheekh Muxyidiin. hadalhayntan oo bilaamatay markii hotelka SYL ay shabaabku weerareen jimcihii hore ayaa sii xoogaystay saacadihii la soo dhaafay waxaana jiray warar iyo hadalhayn sheegaya in Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheynayo inuu hoggaanka NISA taliska xoogga dalka uu isbedel ku sameeyo. warbaahinta Somali Direct TV waxa uu kurgashay ajendaha kulanka Khamiislaha ah ee maanta markaasi ay yeelanayeen golaha wasiirada ayaa ogaatay in ajendaha aysan ku jirin arrintaas isla markaasina uusan jirin qorshe xilka qaadis ah oo miiska u saaran madaxweynaha Soomaaliya. Somali Direct TV waxay xaqiijisay in Mahad Salaad uu haatan yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Galmudug. doorashada Galmudug ayaa dhacaysa bisha December ilaa Janaayo. waxa lagu wadaa in markaas uu iska casilo xilka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Salaad jagadaasi uu haatan ku fadhiyo. dhinaca kale waxa ila xogaal ah ay noo xaqiijiyeen in Xasan Sheekh Maxamuud uusan weli wax isbedel ah u qorsheysan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaasi oo kamid ah xafiisyada laga hadalhayay in dhawaan lagu sameyn doono isbedelka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horay uga gaabsaday ama uga baaqsaday in taliyaha xoogga dalka ama wasiirka gaashaaniga uu midkood xilka ka qaado iyadoo ay xaaladdu ay qasan tahay oo ciidamadu ay ka soo baxeen furimaha dagaalka gaadiid badanna ay shabaabku ka furteen dawladda. taliyaha xoogga General Ibrahim oo inta badan joogi jiray magaalada Muqdisho ayaa hadda waxa uu ku maqan yahay furimaha dagaalka. waxa uu joogaa Shabeellaha Dhexe waxa uu hogaaminayaa oo dib boodhka uga jafaya dhamaystirka wajiga koowaad ee dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab.
dhinaca kale hadalhaynta saacadihii la soo dhaafay qabsatay baraha bulshada waxa ku jirtay in xilka laga qaadi doono taliyaha booliiska Soomaaliya xubnaha ku dhow xafiiska madaxweynaha ee noo waramay waxay noo xaqiijinayaan in arrintaasi aysan waxba ka jirin oo madaxweynaha uusan haatan qorsheynin wax isbedel degdeg ah oo lagu sameynayo hay'adaha kala duwan ee ammaanka qaranka Soomaaliya waxa aad daawanaysaan daawadayaal waa wararka Somali Direct TV waxaana idin waramaya Yuusuf Saxardiide doodii xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee cutubiyada ugu horeeyay dastuurka ku meel gaarka ayaa la shaaciyay in la soo gabagabayn doono Sabtida 23 Maarso 2024 kulankii shalay oo uu soo xiray gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ayuu ku sheegay in doodii afarta cutub ee ugu horeysay dastuurka la soo gabagabayn doono Sabtida kadibna lagu wareejin doono gudiyada dastuurka oo soo diyaarin doona nuqulka loo codeynayo qorshaha gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ah in afarta cutub laga dooday loona codeeyay isla markaasi inta aanay xildhibaanadu aadin fasaxa ciidul fidriga kaasi oo ay naga xigto maalmo kooban ama intaasi ramadaanta ka dhiman waxay sidoo kale doonayaan in loogu codeeyo hab gacantaag ah si loogu qariyo haddii tirada ay ku filaan weydo ayaga oo ka cabsi qaba in codadka qarsoon uu hogaamin karo in la diido dastuurka Soomaaliya ama wax ka bedelkiisa waxaa sidoo kale jira xildhibaano badan oo loo sameeyay ballanqaadyo kala duwan si ay ugu codeeyaan dastuurka ayaga haddii codka laga dhigo mid qarsoodi ah ay keeni karto in ay sameeyaan ballanfur balse gacantaaga aysan sidaasi samayn karin dastuurka iyadoo qodobada ugu xasaasan ay ku jiraan cutubka afraad madaxweynayaashii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka digay qaabka loo wado dooda dastuurka iyagoo ku dooday inuu keenayo kala tag iyo khilaaf cusub sidoo kale xildhibaano ka tirsan labada aqal ayaa ka hor yimid dooda dastuurka oo ay sheegeen in ay tahay mid lagu bedelayo dastuurka iyadoo aan lala tashan dhinacyada maamulka sida Puntland Farmaajo iyo xildhibaano badan oo horkacayo ayaa la filayay maanta inay gaaraan magaalada Garowe si halkaasi loogu sameeyo isbahaysi ka dhan ah dhamaystirka dastuurka wahagaaga daawadayaal wali waxa daawareysaan waa wararka Somali Direct TV iyo markana maxaa ka cusub maamulka SSC Khaatumo maxay yihiin wararka aanu idin hayno xogihii ugu dambeeyay ee helaysa Somali Direct TV kala helayso mashruuci waxbarashada ee Program System Transformation Grant kaasoo xogtiisa aanu idin soo tabinay maalinimadii shalayta ahayd oo SSC Khaatumo qoondadeedii maqan tahay ayaa tibaaxaya in wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya mudane Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo ballanqaad u sameeyay mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada heer federaal ee SSC Khaatumo ku metelaya iyo madaxda wasaaradda waxbarashada SSC Khaatumo ballanqaadkaasi oo ah in wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya mudane Faarax Sheekh Cabdiqaadir uu saxiixa u dambeeyay ku duubi doonin mashruucan oo ku 60 milyan oo dollar kaasi oo wax ka badan ilaa uu xaqiijiyo in SSC Khaatumo xaqeeda hesho si la mid ah maamulada kale sidoo kale xildhibaanada federaalka Soomaaliya ku metel SSC Khaatumo ayaa dadaal xoogan ugu jira sida ay u xaqiijin lahaayeen in SSC Khaatumo ay ka faa'iideysto mashruucan waxbarasho ee muhiimka warbaahinta Somali Direct TV ayaad kala socon doontaan xogaha ugu dambeeya ee ka soo kordha wararkaasi hayeeshee daawadayaal markan waxaad u diyaar garowdaan wararkeena xiga iyo barnaamijyada live-ka ah oo inagu soo foole halkani waa Somali Direct TV la wadaag wararkeena saaxiibada idinkoo ku shaar gareynaya baraha bulshada nabadgelyo.